Waa mar kale iyo barnaamijkeenii talo iyo tusaale ee arrimaha qoyska aan kusoo qaadanayo wiigiiba mar. Waa qaybtiisii 8aad. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladee. Barnaamijka qaybta 1aad uu kasoo bilowday. Qofkii ku cusub ha soo daawado. Maantana wuxuu noo marayaa qaybtii 8aad. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladee meel walba aad joogtaan. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Cafiifa iyo mar kale channelkeena Cafiifa Channel. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladee meel walba aad joogtaan. Jimco mubaarak, jimco kariim ayaa idin leeyahay Ilaahay. Maanta jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda hana waafajiyo. Dhammaanteen meel walba aan joogno. Waxaan Ilaahay nooga baryayaa cimri dheer iyo caafimaad inuu Ilaahay na siiyo. Inteen dhimatayna Ilaahay u naxariisto. Inta xanuunsan Ilaahay caafiyo. Inta dhibaatooyin kale ay haystaan Ilaahay ka dulqaado. Maanta waa barnaamijkeeni talo iyo tusaale. Qaybtiisa 8aad ee arrimaha qoyska. Kusoo dhawaada dhammaantiin channelka inta hore ila socotay oo ku mahadsantihiin la socodkiina iyo daawashadiina. Inta igu cusubna waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Kusoo dhawaada channelka subscribe dhahada gambaleelka furta si aan isula soconno waxyaalaha aan soo gudbiyana ula socotaan. Insha Allah waxaan ka rajeynayaa waxyaalo bulshada faa'iido u leh. Nafteeda iyo naftiinaba dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay noqdaan waxyaalaha aan soo gudbiyo. Waxaan ma jecli waxyaalaha oo iska maalaa yacni inaan soo gudbiyo. Waxyaalaha oo dadkana wax taraayo, nafteedana wax i taraayo. Waxaan jeclahay inaan kusoo gudbiyo. Hadduu Ilaahay idmo Ilaahay raali ka noqdo. Insha Allah idinkana la socod wanaagsan ayaa idin leeyahay. Maanta waa barnaamijka talo iyo tusaale ee arrimaha qoyska qaybtiisa 8aad oo aan uga soo hadlayay aasaaska qoyska sida uu soo aasmo sida uu kusoo jiri karo loo soo dhisi karo wadajirkiisa waxyaalaha burburka looga ilaalin karo iyo in meesha kala tag iyo uu ka dhasho saasaan kusoo kala qaatay qaybihiisa. Maantana qaybtan 8aad waa qayb ayadana muhiim ah oo hal qodob oo muhiim ah oo qodobkaasna uu quseeyo dumarku uu yahay gooni waana waxyaalaha burburka keeno oo qoyska ay ku kala tagaan badankooda uguna culus oo la dhihi karo waa qodobka ugu culus oo na keena burburka kaasoo maanta ay dumarku gooni u leeyihiin kan raggan uu ku xiga asagana waan kusoo diri doonaa asagana waa mid la mid ah kan oo asagana burburka keeno marka kan waxa waaye qaybtan waa halkaas qayb oo ay dumarku gooni u leeyihiin waa maseerka aan kusoo qaadanayaa maanta marka waxaan ka kula dardaarmayaa gabdhaha walaaladee ah iyo nafteedaba in maseerka aan la iska sahashanin oo aan la fududeysanin waa horta wax jiro oo Ilaahay uu ku beeray dumarka mana ahan in maseer haddii guud ahaan looga hadlo hal dhinac kaliya ma aha oo loo soo qaato dumarka kaliya inay dumar kale oo la guursado ay ka maseeraan laakiin maseerka meelo badan uu ku yimaadaa laakiin kan waa kan qoyska quseeyo labada qof oo wada joogto oo waliba qaybta ay dumarka ay ku leeyihiin ah oo meeshaas haddii ay waxyaalo ama saansaan u eg oo iska shaki ah ama wax cad ay aragtay ama wax loo sheegay in la sameynayo intaba uu kuley maseer ka dhalanayo iyada uu la xumaanayo markuu ayada la xumaadaan ma aha inay iska boodo oo ay tiraahdo waxaas waxaan yeeli kara ma ahan waa sida aniga fikradeyda ah oo idinkana aan rabo inaan idinla wadaago inay tiraahdo waxaan qaadan kara ma ahan waxaan yeeli karana ma ahan reerkan ama uu ku kala tagaya ama aniga hadalkayga la maqlayo arrimahaas ma qaadanayo taas hadii qofka go'aan soo gaara kama yeelayo Soomaa marka in la sahashada ma ahan adigana aad salfudeedo oo tiraahdo hadii hadaladaas la igu soo qaaday ama aan maqlo waa reerkan suu ku kala tagay oo meeshaas aan ku burburaya xiriirkeeni iyo qoyska quruxda badnaa familka dhisnay gurigii uu ku burburaya oo wax wal kale aysan eegin gabadhaas oo aysan gurigeeda eegin oo ayada sharafta u leedahay eegin oo ilmaheeda eegin oo wax walba fiirinin oo iska fiirsato halka qof oo maqashay ama in la guursan rabo ama la guursadayba ama shakiba ah taas intay iskala boodo
oo meeshaasna uu ku burburo qoyskii wax u quruxsan ma ahan. Tusaale hadduu maanta saas kaaga burburo qoyskan oo aad saas ku tagto berritii guursataa tahay berri markaad guursanayso waxay noqonaysaa inaa ama nin kaloo reer leh aad guursato ama adigaba ha kugu guursato kow aad ahaatid lagaa daba keeni karo oo mar walbaba aadan noqonaynin kali inaad ku fikirtaa la rabaa oo aadan go-aan ama heshiis aadan lagula galaynin ah anaa maxay ahayd gooni ku ah oo cidina iiga soo kaa galaynin cidna iiga kaa dambeynaynin ballantaas qof kuu qaadayo ma lahan. Marka adoo taas og oo hadhowta adoo gurigaagii iyo ilmahaagii iyo qalqal geliyo oo ka dhex baxday inaad meelo kale aad iga gasho wixii amar ilaahay ah waa goonidiis oo taas ka hadal ma lahan wixii waqti dhammaaday iyo calaf laba qof isku lahaayeen iyadana waa wax ilaahay shuqul ku leeyahay wax anaga noo yaala ma ahan laakiin wixii dadaal ah anaga nala gudboon inaan sameyno iyo wixii karti ah iyo wixii maaragtay deganaansho ah oo anaga intaan awood u leenahay inaan sameyno wixii anagana dhaafsan waxba lagama qaban karo taa ilaaha ku cilmi leh. Marka waxaa fiican inaad berri ka fikirto markaa tan aad boodboodo oo aad saas ku burburiso oo tiraahdo ma jirto meesha in laga soo dabagalo albaabkaas berri albaab adiga kuu xirnaanayo ma lahan taasaa fiican inaad ka fikirto. Marka taasaa ka fiican tanaana adigana kuu sharaf badan haddiisan carqaladooyin kale ama dhibaatooyin kale aysan jirin oo aad qofkan ka dhex aragtay haddii uun arrinta maseer ku eg tahay adiga mar walba waxaa kuu sharaf badan inaad tan wax walba kugu yimaado aad ku qaadato sababtoo ah berri waa kow iyo guri cusub waa kow iyo maxay ahaaday ilmahaagiyo maxay ahaaday ayagana u wanaagsanaynin oo aad la dhex gashay maxay ahaaday buuq kale ama maxay ahaaday qof haddii kow ah waadan ogeyn berri inuu ku anfacayo aadan ogeyn berri inaad ilmahaaga isku afgaranaysiin. Marka boodboodka sidaas ah waxaa aniga ila fiican in horta deganaansho lagu fiiriyo oo wixii xal ah ama wixii socon karo la socodsiiyo wixii aan socon karin ama aan la qaadin karin maba la qaadi karo oo ma aha in nafta lagu qasbo laakiin wixii fudeed ku halaabi lahaa ama wax aanba la huraynin ah ilama fiicnaan ahaanteeda fikradeeda in fudeedka saas lagu socdo. Marka gabdhaha walaaladii waxaa idinkala dardaarmaa ama idinkula talinaya inaad taas aad ka fiirsatiin oo aadan sulfudeedkaas uusan idin qaadin aniga ila fiican oo taasaan idin soo gudbiyay inaadan maseerka aadan fudeedsanina uusan reeriin idinka burburinin oo berri waxay noqonayaanba aan la ogeynin oo inay meel tegayaan aan la ogeynin oo in lagu maqnaanayo qofkan aadan ogeynin inaad waqti isaga dhumiso ama gurigaaga aad ku dhumiso waxa oo aanay aragtidayda fiican ma ahan idinkan waxaan rajeynayaa intii maskaxdeeda ka shaqaysiisay inay saas u fahmi doonto sababtoo adoo ilmahaaga leh oo reerkaaga leh burbur waxaa waaye dhibkiisa la waaye noloshaas oo kale wax fiican ma ahan. Marka ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu familiyadeena famila isfahmo uu ilaahay ka dhigo. Marka idinkan waxaan idin leeyahay shandu ilaahay idmaha lagu dadaalo taas oo deganaashadaas lagu dadaalo oo ha laga fiirsado maseerka fudeedka ah oo si degan oo xal ah oo guriguna dhisan yahay lagu dhameeyo hana lagu xalliyo arrimaha maseerka taasaan idin soo jeedinayaa. Tan qodobka 8 asagana ragga iska leh insha Allah waa noo jimcada xigto oo asagana laftirkiisa burburka qoyska keeno waxaan jeclahay inaan isla wado oo marna aanan dhinac u leexinin inta hore oo dhan waa la isla lahaa rag iyo dumar laakiin labadan qodob waan kala leenahay waa rag iyo dumarka. Marka tan 9aadna ayaga iska leh insha Allah waa noo jimcada kale iyo haddii Ilaahay nafta igu simo aniga iyo idinkaba insha Allah dhammaantiina khayr aan idin rajeynayaa walaaladii meel walba aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.